qaar ka mid ah qurbo-joogta reer Somaliland ee ku nool dalkani Jarmalka oo asal ahaan ka soo jeeda bartamaha iyo koonfurta magaalada Hargeysa ayaa dadaal ay sameeyeen waxa ay kaga qayb qaadanayaan jidka cad ee isku xidha magaalada Hargeysa iyo degmada Salaxley oo ka tirsan gobolka Hawd jidkaasi oo indhawaaleba ka soconayay hawlgalkiisu gudaha Somaliland waana markii ugu horeysay ee qurbo-joog ka soo jeeda deegaanadaasi ay tallaabo noocan oo kala qaadaan oo ay wax ku tarayaan deegaanada ay ka soo jeedaan wadadaas sugumayso idinku ma idin sugaysaa in maaragtay wadadaas si fiican ugu gurmataan qolada gudaha joogto kaliya maaha qolada Ingiriiska joogto kaliya maaha qolada Mareykanka joogto kaliya maaha markaan hadalkayga soo gaabiyo waxaan idinkula dardaarmayaa ama idinku gubaabinayaa dhalinyarada joogta siba Germany inaad si fiican ugu gurmataan. Bismillahir Rahmanir Rahim. Anigoo magacaygu yahay Faysal Ismail Abdi oo ku hadlayo magaca dhalinyarada bartamaha iyo koonfurta Hargeysa. Wax badan anu ku darimaayo wixii aan oran lahaa odayaasha yiri oday Ciise iyo oday Xasan. waxaan halkan marka hore uga mahadnaqayaa Ilaahay oo hawshan nagu guuleeyay dhamaadkeedina maanta aan taaganahay waa wajigii koobaad ee qaran ururinta wadada cad insha Allah taala waxa furmi doona wajigii labaad sida ugu dhaqsaha badan leh waxaan halkan uga mahadcelinayaa kale dhammaan dadweynihii hawshan ka qayb qaatay gaar ahaan dadkii lacagta bixiyay meel kasta ay joogaan lacagtii marka la soo diray waa $1 oo lagu soo hagaajiyay Sheekh Maxamed Cali Geedi lacagta ka bacdina wixii kale tabaabasho waynu gelinaa waxba iskula harin tallaabooyinka noocan ah ay qaadayaan qurbo-joogta ka soo jeeda deegaanada Somaliland ayaa horumar u noqonaya guud ahaan dalka gaar ahaanna dadka taasi oo haddii si isku mid ah ay bulshada reer Somaliland ee ku nool qaaradan Yurub uga fakaraan sidii dalkooda ay wax u tari lahaayeen looga bixi lahaa baahiyaha looga baahan yahay beesha caalamka. Mustafa Xaaji Aadan Haarun, telefishinka caalamiga ee Cable TV, Jarmalka.